faahfaahin kala duwan iyo xogo dheeraad ah ayaa ka soo baxaya qarax ismiidaamin ah oo xalay ka dhacay magaalada Muqdisho gaar ahaan maqaayad ay dad badan ay ku shaacabayeen oo ku taala agagaarka taalada Xawataaka ee magaalada Muqdisho. wararkii ugu dambeeyay qof ismiidaamiye ah oo isku soo xiray waxyaabaha qarxa ayaana isku dhex qarxay dadkaas shacabka ah. faahfaahinta u dambeysay ayaa halkan isku wadaagi doonaa balse marka hore muuqaalka laag saarsiina sheergareeya si saaxiib badan u gaaro. faahfaahin kala duwan ayaa ka soo baxaya qarax culus oo ismiidaamin ah oo xalay ka dhacay magaalada Muqdisho. qaraxaas waxaa fuliyay qof isku soo xiray jaakada walxaha qarxa wuxuuna la bartilmaameystay goob maqaaxi ah ay fadhiyeen dad shacab ah sidoo kale askar Israa'iil ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliya. haddaba sidoo qaraxaas u dhacay sidoo ku yimid qofka ismiidaamiyaha goobta oo ah meel si weyn amnigeeda ay u ilaaliyaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliya si gaar ahna waa baraha control ee laga ilaaliyo madaxtooyada filla Soomaaliya. wararkii ugu dambeeyay booliiska Soomaaliya oo xog hor dhaca ka soo saaray qasaaraha dhimashada iyo dhaawaca qarxaas ka dhashay sidoo kale wariye caan ah ayaa qarxaas u geeriyooday oo ahaa Allah u naxariistay agaasimihii telefishinka Somali Cable Cabdifataax Macalin Nuur Qays. shabaabku qudhoodu maxay ka yiraahdeen macluumaad kala duwan ayaa ka soo baxaya sida ay uga hadleen al-shabaab. xog dhameystiran ayaa halkan idinku wadaagi doonaa balse marka hore muuqaalka laga saarsiino sheergareeya si saaxiib badan u gaaro. abaar 9kii fiidnimo xalay waxaa magaalada Muqdisho laga maqlay dabaq jug aad u culus oo ah qarax xoogan isla markaana lagu tilmaamay inuu ahaa mid kamid ah qaraxyada ugu cuslaa ee ka dhacay magaalada Muqdisho waayii dambe. qarax waxa la sheegay inuu ahaa mid ismiidaamin ah oo uu fuliyay qof isku soo xiray jaakada walxaha qarxa asagoo la bartilmaameystay goob maqaaxiya ay ku sugnaayeen askar iyo dad shacab ah oo ku taala agagaarka taalada Xawataaka ee Muqdisho waana maqaayad lagu magacaabo Blue Sky oo ah goob inta badan ay isku yimaadaan dad shacab ah iyo sidoo kale askar ka tirsan ciidanka dawladda federaalka ee Soomaaliya. ciidamada ammaanka ayaa la sheegay inay ka shakiyeen ninkan oo goobta soo gaaray isla markaana shacabka ay ku sii wargeliyeen inay halkaas iskaga carraan maadaama ninkan uu yahay nin laga cabsi qabo in waxyaabaha qarxo ay ku xiran yihiin. durbadiiba waxaa suura gashay ninkan inuu halkaas isku qarxiyo dhimasho iyo dhaawac fara badan ayaana ka dhashay. tirada hordhaca aan helna waxay sheegaysaa in ka badan 6 qofood oo shacab ah oo askar ay ku jiraan in ay qarxaas ku geeriyoodeen waxaana sidoo kale kamid ah dadka halkaas u geeriyooday agaasimihii telefishinka Somali Cable Cabdifataax Macalin Nuur Qays oo si weyn loo yaqaanay waxaana la sheegay inuu kamid ahaa wariyaashii goobta ku sugnaa. dhinaca kale booliiska Soomaaliya ayaa waxa ay sheegay in qarxaas uu fuliyay qof isku soo xiray jaakada walxaha qarxa oo la bartilmaameystay goob maqaaxi ay ku sugnaayeen dad shacab ah. booliisku waxa ay sheegay in qarxaas uu reebay dhimashada hal qofood oo ahaa agaasimihii telefishinka Somali Cable sidoo kalena waxa ay sheegeen booliisku in ay ku dhaawacmeen ilaa 4 qofood oo shacab ah inkastoo warar aan helnay ay sheegayaan ilaa 6 qofood oo kale oo dad kale oo shacab ah oo ay ku jiraan askar ka tirsan ciidanka dawladda in halkaas ugu geeriyoodeen. dhinaca kale kooxda al-shabaab ayaa sheegtay mas'uuliyadda weerarkaas waxayna sheegeen halkaas ay ku dileen askar badan oo ka tirsan ciidanka dawladda Soomaaliya. wixii ku soo kordhay halkan inta kala socdoontaan muuqaalka laag saarsiina sheergareeya si saaxiib badan u gaaro.